halkani waa BBC oo idinkala hadasha mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan khiyaartana dhagaysanaysa waa 4 bisha Sebtembar sanadka 2017. qodobadan idaacada idinkuga haynana waxa kamid ah cambaareyn loo jeedinayo go'aanka madaxweyne Trump ee ku aadan muhaajiriinta iyagoo daayar la geeyay Mareykanka. haddaba sharciga la sheegay in lagala noqonayo dadkaasi maxaa lagu saleynayaa? dad badan oo siyaasadooda u janjeer dhinaca midigta ama dadka loo yaqaan Republicanka qaar badan oo kamid ah ayaa waxay u arkayeen dekreetadii madaxweyne Obama uu soo saaray oo sharcigan ku soo saaray in uu ahaa mid aan waafaqsanayn dastuurka Mareykanka oo sharci darro ah. ma qiyaasi karaysaa dhageyste sida uu u howlgalo wariye aragga naafaka ah? warbixinayaan idinkaga haynaa. boqolaal qoys oo ka barakacay dagaalo dhowaan ka dhacay deegaanka Xiraale. haddaba waa sidee xaaladda dadkaasi? annagu waxaan joognaa meel buushash xun aan ka dhisanay. dadka qaar geeda hoostiis buu iska harsadaa, qaar oo meel xun oo geeda dugsigood buu hameenkii seexdaa. qof walba tabartiisa iyo xooggiisa. sidoo kale cayaarihii iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan barnaamijka idinkuga haynaa. barnaamijka waxaa soo saartay Bushra Nuur Maxamed, anigoo Faadmo Macalin Abuukar ayaa idinla socodsiinaya. dhageystayaal marka hore aan ku bilowno qodobada wararka caalamka iyo Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe. mahadsanid Faadmo. duufaanta Irma ayaa bilowday in ay ku dhufato jasiiradaha dhaca bariga Karibiyaanka. dadka degan Anguilla ayaa sheegay inay dabayshu durba carcar ku bilaabatay, baduna ay madoobaatay, cirkuna uu midaba yeeshay. duufaanta Irma ayaa halis ah iyada oo darajadeeda lagu sheegay lambarka 5. saacadiina waxay jari kartaa ku dhowaad 300 kilomitir. waxay hadda ku sii dhowdahay jasiiradda Leeward, waxaana la qiyaasayaa in ay sabtida gaadho gobolka Florida ee dalka Mareykanka. dalka Mareykankana waxaa aad looga cambaareeyay go'aanka uu madaxweyne Trump meesha uga saaray sharcigii ilaalinayay muhaajiriinta da'yarta ee aan sharciga haysanin, kuwaas oo Mareykanka la geeyay iyagoo caruura. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo sharcigaas markii hore hirgeliyay ayaa ku tilmaamay mid arxan darro ah oo khaldan, laakiin Trump ayaa ku dooday in uu barnaamijkaasi sharci darro ahaa. garsoore reer Australia ayaa ansixiyay in lacag gaaraysa in ka badan 55 milyan oo dollar oo magdhow ah la siiyo dad horey ugu jiray iyo kuwa hadda ku jira xarunta dadka lagu hayo ee jasiiradda Manus. dad magangalya doonka ah ee halkaasi ku jira ayaa badankoodu waxay ka soo jeedaan Iran, Iraq iyo Afghanistan. waa kharashkii ugu badnaa ee xuquuqda aadanaha loo xukumo taariikhda dalka Australia. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dowladda Myanmar u sheegay in ay soo afjarto waxa uu ugu yeedhay sharka iyo rabshadaha horseeday in ay dadka qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta isaga qaxaan iyaga oo 10 kun ah. hogaamiyaha Ruushka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa ku kulmaya bariga fog ee dalka Ruushka si ay uga wada xaajoodaan ammaanka iyo khalkhalka difaaca ee ku hareeraysan Kuuriyada Waqooyi. warkii dunidana waa naga intaas. Faadmo xasanaad baad u mahadsan tahay. dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeena. waa hagaag dhageystayaal, sidii aad warkeenaba ku maqlayseen, gudaha Mareykanka waxaa isa soo taraya cambaareyn loo jeedinayo go'aankii madaxweyne Trump uu meesha uga saaray ee sharciga dhowraya muhaajiriinta da'yarta ah ee aan la diiwaangelin Mareykankana la geeyay amaba tagay iyagoo caruura, kuwaas oo khatar ugu jira in la musaafuriyo. madaxweynuhu arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in xal waara dadkaasi loo raadinayo. dadku waxay u fikirayaan inay caruur yihiin, balse runtii waa dad qaangaar ah inkastoo ay da'yar yihiin. waana jeclahay dadkaasi, waxaana rajaynayaa in aqalka Koongareeska uu si wanaagsan u caawin doono. waxaana idiin sheegi karaa maadaama aan la hadlay xubno ka tirsan aqalka Koongareeska inay doonayaan inay wax wanaagsan sameeyaan. runta marka la sheegana waddo kale oo u furan ma jirto. waa inaan tallaabo qaadnaa taas oo si wanaagsan muddo dheer u shaqayn doonto oona noqon doonta xalka ugu saxsan oo ugu wanaagsan.
xeerlaaliyaha guud ee dalkaas Mareykanka Jeff Sessions ayaa isaguna sheegay in Congress-ka uu haysto muddo 6 bilood ah si uu u go'aansado inuu xal u helo waxa uu ugu yeeray siyaasadda aan dastuurka waafaqsanayn ee uu hindisay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Obama ayaa sheegay in go'aanka uu yahay mid qalad ah ee badanaa dadka uu saameeyay go'aankaasi ayaa ka soo jeeda Latin America, dowladaha Mexico iyo waliba El Salvador ayaa iyaguna dhankooda arintaasi walaac ka muujiyay ee hogaamiyaha dimuqraadiga laga tirada badan yahay Jack Schumer ayaa isaguna weeraray madaxweynaha. It's telling that Attorney General Sessions, not President Trump, made the announcement today that the administration... waxa ay sheegaysaa in xeerlaaliyaha guud Sessions ma aha madaxweyne Trump uu ku dhawaaqida sameeyay maanta, taasoo ah in maamulka uu soo afjarayo barnaamijka DACA. waxa uu sidaa sameeyay isagoo aan wax su'aala ka jawaabin. waxa ay muujinaysaa in madaxweyne Trump uusan ku faraxsanayn waxa uu maamulka sameeyay maanta. si kale haddii loo yiraahdo waxa ay ahayd inuu isagu isa soo qadimo. taasi waxa ay ku tusaysaa inuu ku eeboobay go'aankiisa. It shows that he is probably ashamed of his decision. haddaba Amiin Haruun waa qareen dhinaca sharciga socdaalka ku saabsan oo Mareykanka ku nool. wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen ayaa wareystay wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal dadkan uu saameynayo go'aanka dowladda ku yihiin. dadkan dreamerska la yiraahdo waa dad iyagoo yaryar oo da'doodu ka yartahay 18 iyo wixii ka yar, qaar badan ay yihiin caruur aad u da'yar 2 sano iyo 1 sano iyo wixii ka sii yar. Mareykanka ay waalidkood la soo galeen si sharci daraan oo la soo galeen. dadkaas oo ku koray dalkan Mareykanka waxna ku bartay kana shaqeeya haddana kamid ah bulshada, kaas oo madaxweynihii xilka ka degay ugu dambeeyay dalkan Mareykanka Barack Obama uu ogolaaday sharci ku meel gaar ah oo ay ku shaqeysan karaan, iskuuladana ku aadi karaan si haddii macnaha aysan u noqonin dad bilaa sharci ah oo sharci waddanka ku jooga. iminka maamulkan Trump kala noqoshada uu kala noqday muxuu ku saleynayaa? dad badan oo siyaasadooda u janjeer dhinaca midigta ama dadka loo yaqaan Republicanka ama qoyaan socodka dalka Mareykanka qaar badan oo kamid ah ayaa waxay u arkayeen dekreetadii madaxweyne Obama uu soo saaray uu sharcigan ku soo saaray in uu ahaa mid aan waafaqsanayn dastuurka Mareykanka oo sharci darro ah. marka tiradooda imisa lagu qiyaasaa? dadkan tiro toos lagama hayo maadaama ay ahayn dad markii horeba tiro koobnaa oo sharciyo lahaa. waa dad lagu qiyaasi karo malaayiin qof inay yihiin, laakiin ilaa iyo hadda waxa ka faa'iideystay sharcigii uu madaxweynihii hore Obama uu soo saaray in ka badan 800 oo kun oo qof ayaa ka faa'iiday. inagoo waliba og macnaha dhammaan sharci yaqaanada ku takhasusay arrimaha immigration ay og yihiin in dad badan ay mar walba ka walwalsanaayeen amaan is sheegaa oo aniga marka hore la ogeyn hadda aan isku shaabadaya macnaha sharcigan cusub si ay u fududaato in booliisku soo qabtaan oo dad badan aynan wali soo codsanin. dadkan noocaasa wadamaday bay ka yimaadeen, wadamadoodii maxay ugu noqon lahayn hadda? dadkan noocaasi waxay ka yimideen caalamka oo dhan, laakiin waxay u badan yihiin wadamada Latin America, maaragtay Mexico iyo maaragtay Honduras iyo Peru iyo wadamadan ay u badan yihiin Latin America, laakiin waxay ka yimideen caalamka oo dhan. wadanka ugu sii badan waa wadanka Mexico oo xuduud kala leh dalka Mareykanka. marka maxaa xanibaya marka wadamada ugu noqon lahayn haddii Mareykanku saayiri? waxay ugu noqon lahayn caruurtan intooda badan iyagoo aad u da'yar baa la keenay. iyagu macnaha ma ayna ku lahayn go'aankii lagu keenayo, wax go'aana kumaysan lahayn. caruur yaryar oo waalidkood keenay bay ahaayeen. intooda badan kumaba hadlaanba luuqadaha looga hadlo wadankii waalidkood ka yimid. wadanka kaliya ay yaqaanaan inuu wadan u yahayna waa wadankan Mareykanka. dhammaantoodna iminka dad yaryar maaha, dad waaweynay baa jira oo professor ah. dabcan waxaa jira dad professor jira, dad waxaa jira jaamiciyiin fara badan. waxay ka mid yihiin qayb kasta oo bulshada kamid ay ka mid yihiin. in badan baa ka faa'iideystay sharcigan oo jaamacada ka baxday oo maaragtay nooc walba ayay leeyihiin. marka madaxweyne Trump waxa uu siiyey muddo 6 bilood ah Congress-ka inay sharci kaga soo saaraan. maxaa laga filayaa Congress-ka? dabcan arrinta immigration waa arrin muddo dheer soo taagneed in arrinta sharciga immigration dalka Mareykanka dib loo fiiriyo waxaan laga bedelo si dadkan oo kale iyo dad kale oo fara badan oo iyaguna maaragtay sharci la'aan wadanka ku jooga si uun loogu maareyn lahaa sharci ay ku helaan ay ku shaqaystaan. laakiin waxaan arrintaas ognahay in la isku mari waayo muddo dheer. kaasina waxa uu ahaa Amiin Haruun oo ah qareen dhinaca sharciga socdaalka ku saabsan oo u warramay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine. halkaad dhageystayaal nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waa hagaag dhegeystayaal boqolaal qoys oo ka barakacay dagaalada dhowaanahan ka dhacaya magaalada Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aad u adag oo dhanka biyaha, cuntada iyo waliba hoyga ah. Xeraale waxaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ku dagaalamayay ciidamada maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe iyo maleeshiya deegaanka ah, waxaana la soo sheegayaa in inta badan dadkii magaalada deganaa ay dibadda uga baxeen. wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa telefoonka baadiyaha Xeraale kula hadlay Xaawo Xuseen oo kamid ah dadkii halkaasi ka qaxay. ugu horeyna waxa uu weydiiyay xilliga ay ka baxeen Xeraale. bishii Ramadaan baa dagaalku naqabsaday ilaa waqtigan inta ka dhexle dagaalku wuu nahaystay magaalada. markii hore bishii Ramadaan waan ku dhuumalaysanayna xoogaa dadku aad ugama bixin, wixii ka dambeeyana dadku wuu ka baxay. waxaan ka baxnay magaalada bishii Soonfur, anagu hadereemiyi baan nahay, bishii Soonfur baan magaalada ka baxnay. markii aan isniraano xabadu waa joogsatay, magaaladan soo aadaynay dadka inta caruuraha meesha uga soo kacno. hadda xageed igala hadlaysaa? meel magaalada Xeraale uga baxsan meesha qiblada loo tukado baa oo 8 kilomitir u jidaan joognay oo meeduul ah. marmar baan magaalada naf u soo doonanaa oo dadka waaweyn soo aadaa. muxuu ahaay dad badanuna hadda magaalada maba joogaba, dadkii oo ciidanka iyo dadkii ahaa unbaaba jooga. annagu dadka magaalada dadka muxuu ahaayay dibadaha jira baa wax soo tara, dad wax nama soo tarin, hay'ad wax nama tarin, dawladda Soomaaliya waxba nama tarin. Xaawo Xuseen, waxaad sawir ka bixisaa halka aad joogtaan sida ay u eg tahay haddaad guryo dhisateen ama guryo degteen, halka dadka qaxootiga ah ama dadka barakacayaasha ah ee Xeraale ka qaxay ee hadda aad joogtaan. walaal Xeraale dadka ka qaxay waa fara badan yahay. magaalada afarteeda qoonaba waa loo qaxay, gadaal ha u badnaato, qiblada ha u badnaato. annagu waxaan joognaa meel muxuu ahaayay buushash xun aan ka dhisanay. dadka qaar geeda hoostiis buu iska harsadaa, qaar oo meel xun oo geeda dugsigood buu hameenkii seexdaa, maalintiina geeda hoostood baa la harsadaa. dadna calalo iyo buushash iyo xun buu dhistay, qof walba tabartiisa iyo xooggiisa. biyaha iyo cuntada iyaga ka waran? cunnada iyo biyaha xageedan ka helayna magaaladeediina waa ka barakacnay. dadku dad iska dantaayuu ahaa, qof shaah karsada, qof muxuu ahaay canjeelo dubta, dad iska dantaayoo iska masa, qof yaanyo gata, qof muxuu ahaay baa dadku ah qudaar gadgata. dadkii markuu barakacay abow yaa u shaqaynayo, yaa ilaahay mooye yaa u shaqaynaya, hay'adana aysan taakulayn, muxuu ahaay dawladuna aysan taakulayn. xaggee ka heshaan waxaad cuntaan ama biyahaad cabtaan hadda? biyaha barkadood oo dad reer baadiyaha uu leeyahay oo uu biyaha kusoo shushubto baan u aroornaa. oonna waa qabnaa. dhar aan dhaqano goor noogu dambaysa lama yaqaan, qubays aan qubaysano goor noogu dambaysa lama yaqaano. bahalka la yidhaahdo cunnaduna waa iska waqti nasiib. magaalada markaan soo aadno muxuu ahaay qof tool ay ku dhagtay bahalka la yidhaahdo wax uun ilaahay xaaladooda ogyahay unbaan ku noolnahay oo ilaahay uu isagu ogyahay. laakiin wax muctarif oo hadda aan kuu sheegoon ku idhaahdo waxaasaan ku noolnahay aysan jirin. qoysaska hadda degan halka aad igala hadlayso ee ka soo qaxay Xeraale tiradooda ma noo sheegi kartaa? walaalo ma aanan tirin, laakiin boqolyaal waa gaarayaan. xaaladda dhallaanka iyo hooyooyinka iyo xaaladda caafimaadka ka waran deegaanka aad u barakacdeen? walaal hadda meelaan dhakhtar lahayn oo laga barakacay adiguba waad garan kadhaa. waa iska waqti oo nasiib. ilmihii waa iska rafaadeen, waa iska uurur weyn yihiin, waa iska jiran yihiin, sadeeca waa jidhaa, daacuunkii weli ma dhammaano, ilmuhu waa iska shushumayaan, qaarna waa u dhintay, qaarna waa ilaahay baa ka kiciyey. rafaad markaan kuu sheego walaalo macaano, ilaahay midaan u sheeganaa qabnaa, ilaahay midaan u sheeganaa qabnaa. Xaawo Xuseen oo kamid ah barakacayaal iyo ka barakacay deegaanka Xeraale oo waramaysay Ibraahim Maxamed Aadan ayay taasi ahayd. dhageystayaasha qodobkaas raayigooda ka soo dhiibtay haddii aan markaas eegno waxaa kamid ah Axmed Maxamed Cali oo jooga Cadaado gobolka Galgaduud. waxa uu leeyahay waa wax laga xumaado dadka abaaruhu ay hayaan haddana loogu dara barakaca. waxaan baaq dheer u dirayaa cid walba arintaasi wax ka qaban karta ayuu yiri. sidoo kale Cabdulaahi
aadan oo jooga buurhakaba waxa uu leeyahay gobolada dhexe ee dalka waxaa ka socda dagaalo wejiyo badan leh oo diin iyo weliba siyaasad ku salaysan iyo kuwo habbeeleed balse waxaa habboon in dadka ay abaaruhu ugu darsameen arintaasi markaasi wax laga qabto. dhegeystayaal waxaa inoo soo socda warbixinaan idinkaga hayno wariye aragga naafa ka ah oo isagoo ka howlgala reediyo Hargeysa. balse imika Kenya guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha Kenya IEBC ayaa 7 xubnood u magacaaba maamulka doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee loo asteeyay inay qabsoonto 17 bisha soo socota. hase yeeshee isbahaysiga mucaaradka NASA ayaa ka biyadiiday iyagoo hore ugu hanjabay inaysan ka qaybgeli doonin doorashada ilaa isbedel dhab ah loo sameeyo si dastuuri ah. Professor Cabdirasaaq Caraale Nuuno waa bare ee jaamacadeed oo falanqeeya arrimaha bariga Afrika waxaana ka wareysanay xaaladda dalka Kenya. ugu horeyna waxa aan weydiiyay waxa laga filan karo hardanka u dhaxeeya dawladda iyo waliba mucaaradka. taariikhda in la bedelo waa suuragal oo wax laga bedelo si macnaha loo qanciyo mucaaradka. haddii wixii u dhaxeeya hadda waa 1 usbuuc ilaa 2 usbuuc ugu badnaan inaanan waxba laga bedelina way dhici kartaa hadduu mucaaradka aanan loo yeerin oon lala fadhiisanin oon laga codsanin inay taariikhdaas ay mactaali ka ahaadaan oo wixii qalad oo dhacay ayna ka daba tegin. waxay u dhow tahay inuu meeshan xidmad intay soo gasho mucaaradka loo yeero lala fadhiista la yidhaahdo taariikhdan way dhacday hadda bal aanan waxba wax weyn aanan ka dhigin. taariikhdan ee doorashada loo asteeyay maxay mucaarad ku diidan yihiin? wuxuu ka biyadiisan yahay labada hadal oo midna dawladda ka yimid kadibna guddiga doorashada uu qaatay oo ah doorashada hadda cada 17 bisha. wasiirka tacliinta wuxuu yidhi 17 ayaa ugu dambeynta taariikhda doorashada ay dhici karta maxaa yeelay imtixaanka ardayda oo aakhir sanadka aakhirkiisa la gelayay ayay ku aadan tahay. mana rabna ardayda in waqtigooda la kala hadleeyo ama waqtiga imtixaanku dib uga dhaca. mucaaradkan wuxuu leeyahay sanad walba waa la sameeyaa imtixaanka wax dhibaato oo ka imaanaya ma aha haddii 1 usbuuc dib loo dhigo. saas awgeed waxaan u malaynay imtixaanka inuu ku aadan yahay taariikh 2 bisha 11. hase yeeshee ee biyadiidka ugu weyn oo mucaaradka ka biyadiisan yahay taariikhdaas waxaa u sabab ah wasiirka tacliinta oo taariikhdaasi sheegay inay ugu dambeyn tahay taariikh doorashada ay dhici karto. labada dhinac waxay u muuqdaan kuwo ku dagaalamaya guddiga doorashada. marka maxaa xal ah ayaa la isdhihi karaa? guddiga doorashada inuu madax bannaanaado waaye sharciyan. doorashadan saad og tahay waxaa lagu xaaraanteeyey oo loo diiday doorashadii madaxweynaha Uhuru Kenyatta inuu helay lagu dhawaaqay. waxa loo diiday ugu weynaa waxaa waaye guddiga inuusan madax bannaaneen oo uu amar ka qaatay dawladda hadda xukunka haysa oo maartay ay dhacday qaladaad fara badan. haddaba tiiba meesha ka maqneen haddii ay haysa haddaba taariikhdiiba doorashada qudheeda in ayaga lagala tashanayo oo mucaaradkana uusan fara ku lahayn oo waxba laga weydiinaynin. waxaad moodaa in ciyaar ka sii xun lagu socdo hadda. marka xal keli waxaa keeni kartaa in guddiga doorashada ninka u weyn Mujibukati iyo kooxdiisa ay u yeeraan guddiga mucaaradka Odinga kooxdiisa ay la fadhiistaan ay ka dhaadhiciyaan ay ka codsadaan ay ka baryaan inay taariikhdaasi maadaama la sharciyey oo jaraydka dawladda kusoo baxday aan waxba laga bedelin oo ay maartay ayagoo raalli ah. guddiga doorashada qudhiisa waxaa lagu eedeeyay inuu ku tuntay dastuurka oo uusan si wanaagsan u qaban doorashadii hore. marka soo la isma oran karo laguma aamini karo doorashada soo socota. qalado fara badan oo dastuurka waafaqsaneen ayuu la yimid. sidaa lagu tooray doorashada ayadeed lagu xaaraanteeyey. haddana in loo dhiibo mucaaradku wuxuu u arkaa ida ama ari maxkamad uu dhurwaa maartay ka yahay xaakim la horgeynaya. marka wax faa'iido ah oo aga muuqda in haba yaraatee ma laha. hase yeeshee waqtiga haray waqti hadda lagu kala bedeli kara guddiga doorashada ma aha. Professor Cabdirasaaq Caraale Nuuno oo arrimaha bariga Afrika falanqeeya ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka iigu waramayay. dhegeystayaal saacadda Afrikada barina waxa ay haatan tilmaamaysaa 7:19 halkaad nagala socotaan waa BBC.
waa hagaag dhegeystayaal haatana Hargeysa Mawlid Maxamed Odowa waa nin wax badan isagoo kaga duwan dadka xaaladiisa oo kale ku jira isagoo yar ayaa waxa indhaha tira xanuunka loo yaqaan qorgooyaha sida daraadeedna waxa uu ku koray arag la'aan balse taa uma uusan joogsan oo waxbarasho ayaa uu bilaabay maantana waxa uu kamid yahay wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa Mawlid ayaa sidoo kale tiriya gabayada warbixintan ayay BBC-du ka diyaarisay waa kan wariyaha BBC-da Sidiiq Burmad oo markaasi inoo soo jeediya 9 sano anigu ayaa xanuun madaxayga marka xanuunka madaxa kulliga dhaqaatiirtu waxay ku sheegeen marka xanuunkaas sababay in aragtidu ay lunto marka laga soo bilaabo 1996 ilaa hadda adduunka ma arag macnaheedu muuqaal ahaan laakiin haddana marka si loo eego waxbay kuma seegana oo ay dadkaanaba warrama inkasta oo uu aragga naafa ka yahay haddana waxa uu noqday mid ka mid ah wariyaasha ugu dadaalka badan uguna wax soo saarka wanaagsan shaqaalaha sida uu sheegay madaxa barnaamijyada ee idaacadda Radio Hargeysa Sakariya Axmed Maxamed haddii aan Mawlid qiimeeyo waxaan ka dhigi lahaa dadka ugu sareeya 10ka ugu sareeya shaqaalaha ayaan sii lahaa markaan eego mas'uuliyadiisa markaan arko wax soo saarkiisa marka wariyanimadiisa iyo talentiga uu awood u leeyahay wariyanimada iyo wax soo saarkii saxafnimo aan eego 10ka qof ee ugu horeeya barnaamij soo saarayaasha ayaan ku dar lahaa Mawlid waxa uu soo saaraa toddobaadkii hal barnaamij oo la yiraahdo subax wanaagsan oo 30 daqiiqo ah muddadii uu wariyaha ka ahaa Radio Hargeysa may dhicin barnaamij ku baaqday waxaaba uu si diyaariyaa maamulka idaacaddana uu ku sii wareejiyaa mararka qaarkood ilaa 3 barnaamij oo dhameystiran oo muddo bil ku dhow hawshii laga rabay Mawlid computerkiisa waxa ku jira program loogu talagalay in ay ku shaqeyn karaan dadka indhaha aan waxba ka arag oo maqal ku hagaya waxaan la kulmay isagoo oo markaasi barnaamij uu sameeyay ku diyaarinaya computerkiisa codba sameynaya waa voice ani button aan taabtiyo ani maxaan ku dhahdaa meel kasta oo tago wuxuu sheegayaa halkan joogo codba sameynaya aniga ayaa barnaamijka runtii edit karaysta ama farsamaysta oo computerkayga ayaan barnaamijka ku sameeyaa inta badan uma baahdo qof barnaamijkayga duuba oo runtii ii farsameeya walow uu aragga Mawlid naafa ka yahay haddana ma jirto wax caqabad ah oo shaqada kaga hor yimaada ama uu tahli waayo kaliya waxa uu caqabad ka mutay markii uu shaqada u soo doontay idaacadda oo ay dadku ay rumaysan kari waayeen in uu rabo in uu wariye noqdo runtii jaarisaadkan waa fursadaha iga caawiyay in maxaan ku dhahdaa aan mihnadan saxaafadda runtii aan dhex galo waxa ka mid ahaa oo kow ka habaaban odhan karaa tababar BBC-du ay qabanaysay oo runtii ahaa tababar lagu baranayay journalismka gaar ahaan maxaan ku dhahdaa qaabka barnaamijyada loo soo saaro maalinta noo dhammaadayna wasaaradda warfaafinta ayaan shaqada u soo doontay aad baan xasuustaa su'aalihii la weydiinayay waxaa ka mid ahaa saad uga shaqayn kartaa waxaan ma arki kartaa adayg fara badan iyo runtii qaadamo fara badan kadib waxay noqotay in la yiraahdo bal barnaamij baa lagu dhiibayay ahlugu tijaabiyo xataa weli markaa kuma qanacsana idaacadda saasan runtii ku soo galay imika aniga dad badan ila yimaadaan oo aan xasuustaa runtii anigu stuudiyaas iga jiro computerkayga barnaamij ku diyaarsanaya baa laga yaabaa inuu qof yimaado oo igu yiraahdo flashtan computerkaaga ii geliyo barnaamijka iga deji oo furitaanka iyo xiritaanka igu samee Mawlid Maxamed Odowa oo ah wariye aragga naafaka oo ka howlgala Radio Hargeysa Sidiiq Burmad uu waramay ayuu kaasi ahaa dhageystayaasha qodobkaas raayigooda ka soo dhiibta diyan fursad siina waxa kamid ah Maxamed Saleebaan oo jooga Hargeysa waxa uu leeyahay wariyahan tusaale waxa uu yahay dhalinyarada aragga naafada ka ah iyo kuwa kale ee naafanimadu ma aha gidaar qofka horumar ka horjoogsan karta ayaa uu leeyahay dhageystayaal waxa inoo soo socday Itoobiya oo wax soo saarka kafeega uu hoos u dhacayo hase yeeshee ciyaarihii hadii aan eegno rajada ah inay koobka adduunka ka qayb gasho jamhuuriyadda Ireland ayaa hoos u dhacday kadib markii Serbia ay gurigeeda uga badisay difaacii hore ee kooxda Manchester City ee Alexander Kolarov ayaa isagu gool dhaliyay daqiiqadii 55aad inkastoo ciyaaryahanka Nikola Maximovic la siiyay kaarka cas daqiiqadii 68aad haddana kooxda Serbia waxa ay maareysay inay ka badiso kooxdii ay markaasi martida u ahayd
haatana dhegeystayaal Itoobiya warbixin cusub ayaa digniin ku bixinaysa in koobka kafeyga ah ee sida weyn loo xiiseeyo laga yaabo in kol dhow uu noqdo mid qaali ah dhadhan fiicanna aan lahayn ee daraasad lagu daabacay joornaalka Nature Plants ayaa sheegaysa in cimilada sii xumaanaysa ee dunida ay u badan tahay inay tirtirto kala bar geedaha kafeyga ah ee dalalka ay ka mid tahay Itoobiya oo ah halka uu ka yimaado kafeyga la cabo haatana qaar ka mid ah geedaha kafeyga ee bariga Itoobiya ayaa qalalay iyadoo qubaradu ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaanayso haddii aanan waxba laga qaban wariyaha BBC-da Emmanuel Igunza ayaa warbixintan ku eegaya sababta mid ka mid ah kafeyga dunida loogu jecel yahay uu qatar ugu jiro dalka asal ahaan laga helo waa kan Cabdinaasir Axmed Sheekh oo isagu soo jeediya waxaana mid beer ku taala bariga Itoobiya waxaana la kulmay mid ka mid ah beeralayda oo la marifaysa geedaha bunka ee ku yaala beertani aseendada ah xilligu waa mid aad u kulul waxayna dhididka wajiga isaga tirtiraysaa garbasaarteeda cagaaran muddo 10 sano ah haweeneydani lagu magacaabo Bayrida Maxamed waxa ay nolosheeda ku tiirsanayd beerashada bunka waxayna ka heli jirtay nolol maalmeedkeeda ay ku quudiso toddobadeeda caruur kagana bixiso qarashka iskuulka balse sanadahan dambe waxa aad u yaraaday waxa u soo go'a sababtuna waxa ay tahay heerkulka cimilada oo aad u sii kordhay iyo roobabkii oo yaraaday awgood bunka ayaa u baahan in lagu beero biyo badan sidaas darteed waxaan ku qasbanaanay in aan beerano dalagyo kale sida galleyda oo kale sababtoo ah ma awoodno biyaha badan ee uu u baahan yahay bunku haddii roob badan oo nagu filan uu jiri lahaa waxaa la arki lahaa bunka in meel kasta uu yaalo balse bunka ayaa ah mid u baahan biyo aad u badan dalagaygana aad ayuu u yar yahay muddo bila ah wax roob ah kama di'in halkan waxaana la wajahayaa sanad kale oo roob la'aan ah geedaha bunka waa ay sii qalalayaan qaarkood ayaaba dhintay meel geeskaasi ah waxa ka muuqda koox dumar ah oo isticmaalaya baaldiyo waaweyn oo ay booyado biyo uga soo dhaaminayaan si ay ugu waraabiyaan geedaha bunka biyaha waxaa laga keenayaa webi beeraha u jira dhowr kilomitir waxaana guray dhammaan ilihii kale ee biyaha halkan oo kaliya ma ahan meelaha dadka ay dareemayaan saameynta isbedelada cimilada adduunka warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegay in 60% dhulka hadda bunka lagu beero ee Itoobiya uu nabaad guuri doono 100 sano ee soo socota sabab la xiriira isbedelada cimilada dawladda ayaa beeralayda waxa ay ku dhiirigelinaysaa in ay u guuraan dhulka joogiisa sareeyo halkaasi oo cimilada ay qabowdahay geeduhuna aysan dhibaato soo gaareynin Bakar Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay saraakiisha wakaaladda beeraha ee Harar dawladdu waxay beeralayda ku dhiirigelinaysaa inay la imaadaan qorshe beeraha lagu waraabinayo marka roob la'aan dhacdo isbeddelka cimilada waa mid cad oo dhibaatada way jirtaa annaga waxaan isku dayaynaa inaan la qabsanno waxaa la rumaysan yahay in Itoobiya ay tahay meeshii ugu horreysay ee bunka lagu beero laguna sameeyo qaxwada sanadkii hore oo kaliya dhoofinta bunka waxa Itoobiya ka soo galay 900 oo milyan oo dollar oo lacagta adag ah ilaa 15 milyan oo beeralay ah ayaa ku lug leh tabcashada bunka balse faa'iidada ma ahan oo kaliya xaq dhaqaale ee sidoo kale waa mid leh faa'iido xaq dhaqan oo gudaha dalka Itoobiya ah bunka oo lagu tilmaamay hadiyadii ugu weyneed ee Itoobiya adduunka siisa ayaa wajahaysa caqabadii ugu balaarnayd Cabdinaasir saxan saxo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi inoo soo jeedinayay dhageystayaal warbixintaasina waxa ay markaasi ugu dambeysay idaacadeeni subaxnimo ay idin soo saarto Bushra Nuur Maxamed anigoo Faadimo Macalin Abuukarana aan idin la socodsiinayay cidii ay dhageysigeeda dhaaftay waxa ay dib uga dhageysan karaan boggaan internet ku leenahay ee bbcsomali.com waxa inoo balana saacada marka ay tahay 2 duhurnimo ee dhageystayaal nabadgelyo Thank you.